waxaan doonayaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed bishan 22keeda April bishan April aan ku jirno maalinta Jimcaha inay dhacayso doorashada xisbiga Jubilee ee anigu ka tirsanahay goobaha codka laga ridanayana ay yihiin xaafadaha Kamukunji oo dhan oo Islii ka mid tahay meesha aad codkaada ka ridan karto waxa weeyaan Islii High School, New Islii Primary School, St Teresa Primary School, Maina Wanjigi Secondary School iyo Islii Airport Primary School. Shanta qaybood ayay dadka Soomaalidu u badan yihiin. Anigu waxaan u sharaxanahay musharaxa xisbiga Jubilee ee baarlamaanka xaafadda Kamukunji. Waxa ila taagan 3 qof oo kale oo Soomaali ahayn. Marka walaaladayda Soomaaliyeed waxaan leeyahay soo baxa nin idinka tirsan oo Soomaaliyeed codkiina u rita maalintaasna garab baan idinka rabaa inaad ii hilisaan oo soo baxdaan sida anigu aan idinku dagaalamayay Soomaalinimadan idinku dagaalamayay hantideena aanu ilaalinayay midnimadeena aanu dagaalamayay ayaan aniguna maanta idinka codsanayaa doorashadaas inaad ii soo baxdaan oo aad garab isiisaan si la xadlana aad u soo baxdaan waliba doorashadan tartankeeda aad iyo aad buu u kulul yahay saddexda nin ee ila tartamaysa waa dad tiro badan bay ka dhasheen dad fara badan baa u soo baxaya marka idinkuna waa inaad muujisaan midnimadiina iyo xooggiina oo aad subaxda horeba inta markaad masaajid ka soo baxdaan salaada subaxnimo aad toos u gashaan meelaha codka laga ridanayo maalintaasna ganacsatada Soomaaliyeed ee Islii dukaamada way xirayaan wax dukaamo oo la furaya ma jiro ilaa laga soo baxayo doorashada markaad ka soo baxdaana salaada duhurkii ee Jimcaha toos loo galaya marka mar labaad maalinta doorashada ee reebka xisbiga Jubilee waa 22ka April oo maalin Jimca ah subaxnimadii hore Yuusuf Xasan weeyaan qofka aad u codeynaysaan xildhibaankiina joogtada ah 3 kale qof oo aan Soomaali ahayn baa ila taagan kursigan ma ina daafacdaan Yuusuf Xasan iskama leh idinkoo dhan baa leh u soo baxa codkiina u rita soo rita haddana mar kalena u codeeya nin Soomaaliyeed idinla dhashay oo isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan aad tihiin haddii lagu doorto amaba dadka Soomaaliyeed ay ku taageeraan waxyaabaha aad u ballan qaadayso oo aad u qabanayso maxaa ka mid ah anigu marka ugu horeysa horumar badan baan halkan ka sameeyay waxaa ka mid ah jidadka xaafaddu aad u burbursanaa jidadka ugu waaweyn dhiiqa iyo hogag baa ka buuxay gaari gacmeed baa lagu gudbi jiray maanta waa jidad waaweyn oo fiican nalka xaafadda meel kasta way shidan tahay dugsiyada dhowr dugsi baan dhisay oo sare dugsiga farsamada gacantaan dhisay waxaa kale toon sameeyay xarunta deegaanka oo meel cusub aan u sameeyay waxaa intaasi dheer ID-ga barigii horeeto meelo badan baa laga qaadan jiray oo fog dadka Soomaalidana looma ogoleen inay Kamukunji ka qaataan iminka ID-ga halka laga qaataa 2800 oo dhalinyaro Soomaaliyeed baa ka qaatay baasaboorka halka laga qaataa waxyaalahaas oo dhan waan u sahlinay hawlihii aan bilaabay horumarka ahaa ayaan sii wadayaa oo ay ka mid tahay dhismaha xaafadda oo meelo badan dhismaheeda ay u baahan yihiin wax laga qabto xuquuqda dadkeena inaan u dagaalamo nabadgelyadooda askartan na dhibta inaan iska ilaalino oo iska kala dagaalano xaqdarrada iyo ku xadgudubka ay sameynayaan iyo waxyaalo badan oo kale oo xildhibaanka looga baahan yahay inuu ka caabiyo dhibka xaafadda soo food saaran